السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو wada dhawaada walaalaha ku xiran channel YouTube-kayga meel kasta aad joogtaan soo wada dhawaada. Walaashin xamdi kalgacal qisadii waxaan rabaa in ma badan baa xigu dhahnay habla badan waan soo tahriibi rabnaa xamdiyay nooga sheekay qisadii tahriibta kulay tahribta hadan ahna barta ma ku soo koobaynaa ma soo koobin karayso waa qiso aad iyo aad u dheer qofkii soo maray jidkaas Liibiya ilaa Suudaan ilaa Itoobiya ilaa Soomaaliya ilaa Yurub aad ka soo gelisid waxa yaala rafaad badan waxa yaala geeri waxa taala cabsi badan waxa taala lacagtii waalidka iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada ay ku soo gureen amba maxaa dhahaayay social media dadka qaar looga soo guray amba dhulkooda loo iibiyay amba hantidoodii loo iibiyay loo baabiyay ayaa haddana waxa dhacda in dadka dhibaato weyn loo geysto marka ugu horeysa waxaad ka soo bilaabaysaa wadankaaga hooyo Soomaaliya markaad ka soo ambabaxaysid waad faraxsantay waxaad leedahay Yurub baad gelaysaa maanta ayaa ugu wanaagsan aad Yurub gelaysaa Yurub oo socotaa baad isdhahaysaa laakiin maxaa kaaga soo horeeya aad iyo aad baad faraxsantay waxaad isleedahay maanta waxaad gasho gelaysaa wadan qurba ah amba Yurub meesha aad doonaysid riyadaada ku rumoobeysa laakiin riyadaada kuma rumoobeysa waxa ka soo horeeya halaag waxa ka soo horeeya hoog marka horeysa wadankaaga hooyaad ka soo baxaysaa adigoo faraxsan adigoo ku qanacsan waxaad imanaysaa Itoobiya marka timaado waxa ku bilaabmaya rafaad waxa ku bilaabmaya jirdil waxa ku bilaabmaya cabsi marka Itoobiya timaadid waxa laga qaadanaya lacag $300 gaadha xilligan soo maray waad ka soo baxaysaa tigbaal waxa lagu soo saarayaa baskii baad ka soo digaysaa waxa lagu soo saarayaa tigtibaad jidka xuduudka Itoobiya Suudaan dhexdooda u dhaxeeya ku soo dhaafinaysa haddana waa lagu soo lugoysinayaa muddo 9 subaxnimo ilaa 12 habeenimo ama 5 maqribnimo qof nasiibkiisa ayaa soo lugeynaysa intaas oo dhan marka soo lugeysid haddana waxaad imanaysaa maxaa la dhahay Suudaan waxa ka soo horeeya marka lugta marisid buuraad ka daadigaysa boholaad ku dhacaysa waxaan ku dhul biyuhu jeexeen xiliyadii Soomaaliya la joogay baliyada kale biyuhu jeexeen oo qaraar lagu halgelaysa birra ku mudaya qodxihii adduun waad soo dhaafaysaa markaad soo dhaftay Suudaan baa imaanaysaa Suudaan markaad timaadid gudaheeda ma gelisid meel banaana lagu fadhiisinayaa oo yara xoogaa doox weyn markaad soo dhaftid geed hoostiisa dameer baa biyo lagu keenayaa biyihii baa lagu siinayaa biyihii baad cabaysaa biyihii markaad cabtid xoogaa madaxa dumarka loogu shubo dadku nafta ku soo noqoto waxaa loo keenayaa amba tigo amba mootooyin amba maxaa la dhahaayay ii sheegeen amba mootooyin amba waxaa lagu keenayaa gaari yar oo maxaa la dhahaayay cabdi bilaho kala xajiir camal wala kugu qaadaya haddana. This is where the long road begins in the desert of Niger, several days drive from the Libyan border. They've come from all over West and Central Africa. Off they go in the dead of night, adrift in an ocean of sand, clinging to their dreams. Some of them may not hadday moobila tahay iyo hadday dawo sidato qofkii wax marsanayay iyo hadday jaakeeda tahay hadday kaba tahay hadday maryahaaga tahay hadday wax kasta xitaa moobiladii gaariga dhigtiisa kaga tagaysaa ciladaas beerka dhulka dhigaysaa gaarigii ibir ah waa soo noqonaya wixii oo dhan Suudaantii baa la soo degtay adigoo ibir barti ka soo noqonaysa sidii haddana Suudaanta ku soo qaadaysa 12 habeenkii oo dhan bogsoo 3 habeen iyo 3 maalmood ayaa marba gaari Suudaan la soo ka bedelaya haraad baa nafta ka jaraysa meel yar waxa lagu keenayaa ostag badan boqol yar ah oo qof liba magaciisa dhuxul yar qaada meesha ku sii qorayo halkaas waxa lagu haynayaa maalin dhan kuleelkii adduunka ka dhacay Suudaan halkaas maxaa la dhahaayay lagu keenaya sharaab yar iyo rooti qalalan Suudaanta cunto oo wada daqiiqa intii markaad cuntid ba haddana lagu soo qaadaya intii markaad cunto lagu soo qaadayo waxa lagu keenaya haddana maxaa la dhahaayay adigu meel kale haddana gaari weyn baa lagu keenaya gaari weyn waa baabuurta Soomaaliya markaan joogno baabuurta weyn baadiyaha u baxdo kale ayaa lagu keenaya baabuurkii baad soo raacaysaa baabuurkii markaad soo raacdid gudihiisa baa lagu gurayaa dhagad sarana shiraaq baa laga xidhayaa gaariga habeenimo wuxuu ku soo gelinayaa Khartoum. This is where the long road begins in the desert of Niger, several days drive from the Libyan border. They've come from Khartoum markuu gaariga ku soo geliyo waxa lagu sii qaadayaa adoo Khartoum marka habeenkii soo gashid waxa lagu keenayaa cunto Soomaali baa ku imanaysa nimanka maxallisiinta Soomaalida ah ayaa ku imanaya amba ku xawaaladaha haysta meesha mas'uulka ka ah baa ku imanaya dadana waxay ku keenayaan casho bariis maxaa la si fiican loo soo kariyay adigu digaagadii mool garaysan sharaab yar caano yar nafta ku soo yar noqonaysa habeenkii baa seexanaysa hal suuligu meesha ku taala waa hal qol rag iyo dumar baa la isla seexanayo
biyaha soo wixii fuustooyin biya meesha yaala qofkii maryaha dhaqan karaya maryaha dhaqan saa halkaas anaga maryaha ku dhaqnay rag iyo dumarba dhalinyarta anaga u dhaqnay neef baa lagu keenayaa marka la soo biriyay hargii laga soo bixiyay xilliga neefkan karsada iyo bariiska habliiba marka is qorsheynaya neefkii wax qaarna neefkii karnayaan hilibkii qaarna bariiskii karnayaan qaarna maryaha dhaqayaan habeennimadii waxa la dhahayaa maxaad u baahantahay casarkii markay tahay qof waliba lacag $50 gaadhaysa ayaa lagu ogol yahay maxaad u baahantahay cabaayad oo kiyaala dabaysha aad ka xidhatid kabo qof leexba dooranaya sidiiba adigu lacag loogu soo adeegaya lacagta marka $50 iyagaa bixinaya mukhalisiinta bixinaya waxaa loo keenayaa marka maryihii iyo kabihii iyo wixii jaakeedada qof leeyahay wuxuu dalbaday xilliga kuleylka tahay ma soo warnay qabowgii baan soo mara kabacdi haddana maxaa wax la sameynayaa gaari baa lagu ridaya casarkii markay tahay gaarigaas wax lagu saarayaa joonyad adiga kule eeg oo wax kasta ku jira kalluuno sharaabo timiro waxaan ku wariyay tufaaxo waxa aan ku jirin habeeraatay ma jirto jaasidaha yaryar oo mool garaysano oo maxaa la dhahaayay cananiska waa lagu soo qaadaya haddana iyo biyo 3 kiis 4 kiis oo biyo yar waa lagu soo qaadaya gaariga cabdibilaaha ee saxraha ku keenayay ayaa lagu soo saaraya gaarigaas habeenimo kula soo goreynaya habeenimo halkaas hadda kusoo dhajinaya dhinacayga ka daawada habeenimo gaariga kula goreynaya gaariga adimada dambe fatada un baa lagu dhex ridayaa ragga lugahana banaanka la geenaya dumarka halka dhexdaas loo fadhiisinaya dhexda raggan hareeraha laga marinaya laba habeen amba laba maalmood amba 3 habeen baa anigu nala soo socday ayuu saxarahaas iyo buurahaas ka soo dhaadhacay wadanku waa buuro mar waa ciidaas markuu gaarigu galo rag iyo dumarku waxoogaa 6 iyo 7 meexan ku saarnay dumarku waa saarnay ragga la dhahayaa riixa inaa yaroo gaajoonay oo soo rafaaday ama waxba haysan oo ilaahay ogyahay xaaladiis yaa nafta ka soo baxday oo biyihii wixii la siiyay ka soo dhamaadeen 3 habeen bacadkaas lugiisu la laadeen ayaa waxa lagu dilaya lagu qaraacaya maxaa la dhahaayay waa inaad maxaa la dhahaayay waxa lagu qaraacaya lagu dilayaa inaad gaarigan riixda gaarigii ciidda galay oo ciiddu ku soo saa isku laba rugaysa la dhahayaa riixa markaas gaarigii riixaya haba gaariga sadii riix waay ul baa la qaadaya la dhacaya shugde rafaad baa yaala saxaraha rafaad baa yaala liibiya rafaad baa yaala suudaan ana waa inii sheegay Soomaaliya islaan. This is where the long road begins in the desert of Niger, several days drive from the Libyan border. They've come from all over West and Central Africa. Off they go in the dead of night, adrift in an ocean of halkiiban adigu hadaliyana kugu daalina soo soconay waxaan nimid maxaa la dhahaa saxarihi waxa jooga marka ninkii magafaaha magafii baa wuxuu nagu hor yimid jidka magafii jidka inta laga hor iman baa waxaan qabsatay shurdadii baa maalin haysatay lacag qofkiiba $25 ah baa leeyahay lagu ganaaxay ma haysanaba niri ninkii gaariga wuxuu yiri ma bixinaysaa marka tagtaan maxaa la dhahaayay khalaska u tagtaan haa wana lagu qorqoray adigu meeshii maalin dhamar harsanay baasta makaroni oo kariyeen waxayna siiyeen xogaa yaro buskul iyo wax noocaasa waa ka soo dhaqaajinay haddana adigu 12 maalintii dhan baa soo soconay shirkadda kalaana qabatay waxba dadkii laga qorqoray booliska waxaan soo galnay maxaa la dhahaayay saxarihi waxaan u yimid magafe markaan aragnay waan ku farxsanahay aniga magafan hay biir oo magafan la joogna farxad baan qarxay wala magafan la joogna sida jannadina loo sheegay magafe baan soo qaaday habeenkii baasta makaroni casaan oo kaliya aan garanaya dalaca bisbaas midho makaronidii baa la cunay habeenkii dhan baa la jiifay soo xibin soo guray gaarigii kale Suudaantaha dib uu kaaga laabtay waxa ku soo qaaday makhalaskii magafaha aha oo 10 nin meelahaas u saaran may 2 nin baa u saaran markood horna waa 10 nin maxabuurta fadhiya مخلص محل نينكي مقفها بحنا سوودي هبينية وحل الصعدة وحنا كان بورتا مركا واحد مدة سبحان الله سيقسم يسنت هاي أفر ميلاد بسا بورتو أفر بوروضة كلويان مالي رلقا بحكي لي هاي ماشي دحدة هيدا في حنيدا يرا حركة هيدا سقافة دقن انتي بعدك هيدي بعدكي هالبورو لير اللي تدكي وكهيستان dadka wali waxaan Soomaaliya hayn markaa meesha ma joogaan dadka markaa uu nimid waxaan moodnaa dadka lagu soo yaacay waa maxay baan niri waa dad calaashan qaar 2 bilood joogay qaar 4 bilood joogay qaar 5 bilood joogay dadka timihu dumarka laga xishoor maayo timihi raamay noqdeen rag Soomaaliyeed futada ka dhacdhaceen lugaha way googeen waxaan ku gurile waxay dadkan gurile ma taqaantaan daanyeerka camal dadkan soo deeyo ustaga midhona anagayga waa nuureynaba markaas hababad ka qashaafaysa waxay dadkan meesha jooga buuraha saddex cisho gudahood ma sidii kala ku noqonay annagana dadkii un banu ekaano dilci dhuunta la dilaacayo waxaan ku la mariyo wana laga soo reebay mariyo dhan bila Suudaan baa la soo hadhay xaqo grad masdad hal su'aalay hal dilci shiidka ku socotid dilci barta dhuunta iyo dilaacay anigu san saa u gunti qoorta saa u gunti soo garabka ka dilaacay haddana gunti
waxaan ku yiri meesha in jirbasa u joogto ummadii dhan jirbasa u gashay ragga saytan suwaalada iska sii ambasaan jacayl dumarkii saasa jacdal iska guraya adigu saxarihii dad baa bilaa badan fadhiya 17 cishan saxarihii ku jiray qofkan markuu saxaraha soo galo sidiisa waxa lagu yaqaan caan ku yihiin dadka aabo gacan baa laga jabiyay hooyay lug baa laga jabiyay hooyay aan waxaan aabo gacan baa laga jabiyay deg buu markaa abahayo ma sha Allah hooyada iyo ninkayga iga soo saareen adigu sidii baan ku soo dhaafnay saxaray buurtii markaa buurtan gafahaaba dadku markaa dhibaato aad dadku ka soo gaadha waxa ku dhintay intan buurta hoosteeda joognay harsanay 3 qof 2 wiil iyo gabar baa naga dhintay haraad daraad u dhintay maxaa la dhahaayay dadka waxaa la sameeyaa qofka kabihiisa qofka kabtiisa buurka ama dacaska ama sandaka wuxuu wato maalin baa qofka kabihiisa lagu karnaya cuntada xaabo ma leh waxba ma leh kabaha wuxuu soo qaadayaa 2 qoriyo xaaba wuxuu leeyahay kabahaaga ku dar saaxiib la kabihina way ulolayaan marka lagu qabto qarafka kabahasan wax ku karsanayna saxanka wax lagu cunayo cid meedhi mayso saxan weyn baa hal mar lagu riday amba mar bad huraysa amba 2 jeer bad huraysa dhalinyar baa joogta rag baa jooga dumar baa jooga hal meel hal miskiilaha baastada amba kiila baasta wuxuu hor dhigayaa 240 iyo dumar isku jira marka saa marka hal mar gacanta u gelisid ibra ay noqonaysa waxa kugu yiriyay rafaadkii adduunka ayaa yaala sidii baan bartay ka soo amba baxnay sidii baan bartay ka soo amba baxnay adigu saxarihii waxaan joogay muddo 17 cisho ama 18 cisho u dhaxaysa wallahi rafaad badan haraad gaajo aniga buuraha hoostiisa markaan galo qoraxda markay kululaato buuraha hoostiisa geli jiray waan ooyi jiray umulna waan ahaa marka inankayga marka 10 sano jira ayaan marka 6 bilood meelaha ahaa aan ka imid markaasina asoo aad bariga ii jiray markaan noo joogay jigjigiyo artsawi aanuna soo caana lahaay laakiin marka saxari soo galay waaba gureen waxaan cunaba ma laha waxaan cabba aduu hadriyana kugu daalineen halkaas maxaa la dhahaayay la jooga biyaha waxa lagu siinayaa caagad yar waxa lagu siinayaa caagadaha yar yar maartay halka kunka shilin labada ku Soomaaliya marka joogna laga siiyo biyo halka mar aad ka batid oo baadrool ku daray baadroolku wuxuu kaaga dhacayaa xaglahu kaaga dhacaya iyo xoog oo dhan baadroolku wuxuu ku darayaa inayna dadkan cararin amba ayna tagin meel sidii markii xaglahu iyo beerku ku dhaco wadnuhu u jeediyuna u kicin baadroolkaas wuxuu ku daraya damba ku qasbaysa waad cabaysaa baadroolka markaad cabto waa sarqaamaysa adigu saxaraha sabeenka qoraxda markay dhacdana waaba dad nool ban huwan heesaynaaba laba isku gurgurina dadka waska heesaynaaba 18 May 2013 waxay ugu soo gashay saxaraha markaas habeenkii 18 May Soomaaliland waxaan ku rahaysnaa 18 May wal daraarti la taagay la dhidbay calankeena dhalankeeno nabad u seexday xumaha dhaafaha wala yabili halkaas habeenkii dhan aan heesayna maalintiina dadka meedka ah waan bartaa jiifa habeenkiina bartaasan ka maxaa la dhahay ciida qabowba sa isku rogrognaa ciidaasna isku asna ala kulli xaal adigu rafaad badan bartaas waa yaala maxaa la dhahay saxari waa soo dhaafnay qofka marka lacagta loo soo diro ninka magafaha wuxuu ku yimanayaa salaadka casr wixii ka dambeeya markuu soo socdo dadka farxad bay qarxayaan waayo lagu yeedhinayaa lacagtaadi waa la soo bixiyay lacagta Suudaan baa lacagta lagu shubay waxaan haysanaa mobile toray ah ayuu ku dhiibaya inaan yar afka yaqaanaan inaan afka taqaantaa loo dhiibay anaga wiil baan noo hayay halkaas qofkii la soo wacay reerkiisa reer hebel marka la rabo ku soo orday أو هذا اللي أنا كوجد علينا سيدي من محل ده لعقت اللي وشوا قفك لعقت مرة الله شوف أرد كنت كنيا أرد بصلاة كوقف صنايا سولي جنبتشرو بيا لقوا يستجوني يبتشر تقفل وانتو عرب بورتا ده قال الصحة ولا جحس كقصة بيو صلاة ديسك تكني على كل حال ولا إحادري هذا تضبط الشوك أنا تضبط الشوك على عقد الصدري طبعا كعشرة واحد بلا يوصل لك ركاب لقادة للسوية هذيك قف كلية لما قاضي يشون قف لما قاضي طبعا قف لما قاضي صوت قف أفرتن قف للسوية تذكر ملايين بعد كانت شوكة سيدي من هذيك قصة عم بحناي سيدي بوحنا قصة قرني قارجي هذا صد حبين يصدح مع الموضوع أي ليبي أسوس عني صدح ذهبين يصدح مع الموضوع ليبي أسوس عني باستير بامرنا لوكري بريسير بامرنا لوكري أدو أسوس عني ويل بان نجا سكرادي ويل كمر كنا نجا سكرادي إلك عسال ده يوم قرنيا أيو كعي كروي قالوا كدعاء وكقبتا ودلا أدو سيدنا رفعت صباحنا ويل كلا سجنا جاي فرس لها سجنا وانا قد انتي أدو حوجا أدو رجوي نجا مدين رجع عاد بمدين هل جبرا سديد يتوقف أنا قصور انتي أدو سديد يتوقف كقفكم مركل انتوا ولا طوريا قفكم مركل انتوا ولا طوريا قفكم مركل انتوا أدو انتي صحراء انتوا جاي انتي إلى اللي بيسوق سديد يتوقف في جاري عندك انتي dadku markay dhintaan baabuurka dhigidsa ay saaran yihiin baabuurku waa kulay saxaro maraya dadku markay dhintaan hoos bay isku dhacaya Soomaha birti gaariga kama toosayaan amba waxba iska kama dhigayaan marka hadhow meedka la isdhaho amba qabta amba toosiya amba maxaa la dhahaayay qofkan meedka hala dejiyo jirkiisu wuu ku soo raacaya jirkiisu wuu muruxaya subxaanallah dubkeena sare marka laga qaado dubka hoose waa casaan
daldaloolo midhan weeyaan daldaloolo midhan jirkiina dubka hoose wacsan daldalool midhan marka stressda u qaba meedkii wuxuu noqonayaa meedkii daqiiqadiiba meesha waa kuleyl marada aan xidhan oo kale madow saa markaad u taabtidna dubka baa kusoo raacaya aduu hablo af carabiga yaqaanaa jiray hablihii baa hadlay meedkaana laga aaso meedkaana laga aasado waana laga soo aaso qofkii saa gacantiisa usoo taagantaa saa u aasin isan ka dhaqaaqay aduu hadalay ku daalin xitaa wiil banaanu gacanteeda wax ka uga aasa waa soo socon waxaan nimid Liibiya markaan nimid bilaa kabanna oo bilaa waxaan nahay googorado oo waxaan nahay bilaa masaro oo waxaan nahay bilaa shalmado qof laba diric shiida iyo suwaal yar buuxan yahay amba googorad iyo diric shiida raguna sidoo kale waa cagcagihiin waxba ma wataan garamaan yar oo fiinad iyo suwaal yar futadii hoostaba ka dhacsitaa adigu sidii baan Liibiya ku soo galay Liibiya markaan soo galnay tagaasidii baan ugu soo carartay tagaasidii ugu soo carartay waxaan idhi ay jalan baan rabnaa noo geeyay ay jalan ilaa habar jeclo markaa dadka khal soo reer jiray ay jalamkii baan loo geeyay ninkii gaadhigu xiray jalan baan lacag ku siinayna baan ku niri anagii hablihii kale intii nasiibkayga markaas ku beegnay aduu hablaana laga faraxumeeyay adigu markaan soo galnay saxarahaas 40 qof aan lagu soo raray 20 dumar ah iyo 20 rag ah 20 dumar aan meel gooniyo carabti ku rogteen 20 ragana meel gooniyo ku rogteen barkad yar hoosteed bay la tageen adigu inantii in badan waa isla hadalnay magacayga ha sheegin bay tiri jarmal bay digantay ku nooshahay alxamdulillah isayadu sheegtay waxay tiraa waxba ninka imu gaarsin dhiigi baan wataa baan dhiri laakiin ilaahay baa nagu oo kale gabadha waan laga kaxaystay markay soo noqotay salaad bay tukatay qof kastoona waxay tiri ilaahay bari mid kalena isoo kaxeeyay buu yiri adigu ilaahay wax kale nama soo gaarsiinin alxamdulillah waa ka soo gudubnay arrintaas adigu waxaan soo galnay Liibiya jarim gurgiisa baa nimid habeenkii waxa lagu seexanayaa kaba waayo waxa laga baqayaa askarta Liibiya inay ku qaataan ba ku xidho askarta marka dal waa laga daadanaya qof walba Liibiya waxa loo soo diraya lacagta marka uu doonta ku soo raacayo lacagta doonta marka 1500 camal bay ahayd lacagtii marka aan saxaraha aan ku soo bixiyay 2500 bay ahayd Khartoum waxaan soo dhaafay caasimada saddexaad maxaa la dhahay sabhamiyay ahayd caasimada saddexaad baa jirtay oo Liibiya ku dhex taala ayadana dhowr iyo 10 cisho joogay ayadana 1500 baa la igu soo diray oo ayadana magafa kale oo qabsaday oo dadka qol ku xidhay oo raggan qol ku xidho dumarkana banaanka seexiya cuntada banaankana loogu kariyo halkaas la yira ku soo yara noolaano ku soo yara marmeedano dhowr iyo 10 cisho joogay oo meesha markaana laga soo rarayay aduu hadaliyaan kugu daalinay sidii baan ku nimid Liibiya markaan sidoo videoga inii dadjinaya waqti ma hayateerna ugu toosaysa sidii baan adigu markaan Liibiya ku nimid baa maxaa la dhahaayay doontii baa ardinadii meeshii doonta markii nimid baan nasiibkayga waxaan helay doon markaa buuxda oo maxaa la dhahaayay habar jecel dooyaha marka la soo yimaado Liibiya waa reer baaquli iyo reer majido iyo reer maxaa la dhahay reer farataag reer majido waa wixii bari ka yimid reer baaqulina wixii koonfur ka yimid reer farataagna wixii ka yimid maxaa la dhahay waqooyi marka reer farataag doonteedii baa buuxday doontii buuxday marka habla saaxiiba aan nahay qaarna imika Mareykan jiraan qaarna hadda malta ila joogaan xaqan aan ka salaamaya ayaa yiri xamdi kama tagayno iyagana aduuradoodu xiriirayeen ninkii doonta wax ka reeyay hadda maltu ila degan yahay aabahay bay siyaaqaaneen bari hudheelu lahaa ayuu yiri waan uga shaqayn jiray maxaa la dhahay adigu sidii bay reerka waa reer aan isla degno isla dhig bixin isna qaana habar jeclo ay oodin reer Yuusuf u badan yihiin ay dhahaan xamdi lagama tagayna suldaanadii fanagana raacaysa doonteena raacaysa sidii ba doontina lagu soo saaray doontii waxna laga soo qaatay $1200 adigu sidii baan doontii ku soo fuulnay ما يكون إلا بقول الدور بالله يسوى دري صدق بقول شو بينكيجا سجال بقول دون تقصرها سيدي من أدو دون تقصو عم بحناي دون تي بصرها دون تي مركينا أنت دون تي لقى سوق هذا كورجي أي كلام أيه وحنا لك هنا محل عمل أو ليبيا كنت يعستي أقل كبدت كموبلات اللي قالها رايح كاسم موبل كلا لا يقالها دنا ليبيا كيف سدي حالك بعده يكون بدالني halkii baa dadkii oo dhan laga soo rariyay rudi qarxana la siilay habeen bameshin lagu hayay doontii bana la soo saaray doontii markii la soo saaray waxana la soo saaray goor adigu 12 habeenimo ah leyd ma leh waxba ma leh calibiyaanku inta qoraro ku dhahaya iska dhaqa markaas bay ku dhahayaan doontaas wax sidii gaadhigii kala lagu raraya lugaha doonta rag iyo dumar dacalka dalin waa laga ridiyay wixii carruursita amba wixii dumar jilicsan ah dhaxda ayaa la fadhiisinaya doontu waa tuyub halkan bal inii soo saaraya doontu waa tuyubkeena caadiga marka wadankeena joognay amba gaadhiga hoostiisa ku jira taayirada amba laga dhigi jiray tuyubka xoolaha lagu waraabiyo waa tuyubta horkaaga lagu buufinaya matoor baa dabada dambe lagaaga xidhaya matoorkaas hadduu ka xumaado amba lagaa furto khalaas dadka qaar waxaa ku dhacda doonta marka la raro liibiyaanku intuu ka daba yimaada matoorka qaali ah matoorku ka furtaa si iyagana badda dadkaas kuma dhaan adigu laba doonyood baan ahayn labadii doonyood ay jalan xaqiisa laga soo raray iyo doon kalaan ahayn saddex doonyood baan kusoo anbabaxnay habeenkaas saddexdii doonyood mid baa naga luntay 14 cishay badda ku jirtay
واسعنا حتى هليبكود تيرتين كي هدات كقرت دون تدك سعنا بعد كيل سيوتيوب ك واسمريان تدك سوي مدين وحير بكبد بعد وحيرانا ليبيا لقوا حري تضوقف على سلام وقف الصومالية شو قفوا تدك مدوق كراك بدبادي بقى دون دم بساقو بابا أديكو سد حبين يسدح معلومات أي بدك صارنا بد مدو ويا مدو saasi biyuhu u wareegaya sidaas saasida canjeelada loo dubiyo kale saa biyuhu wala wareegaysa doonta saas ku wareegaysa nasiib haduu ilaahay ka badbaadiyo saasi ka gala soo boodaysa saddex habeen iyo saddex maalmood ay doonta soo saarnay markaas rag waxay cabeen shidaalka doonta loogu talagalay batroolkii bay cabeen markaas dumarkii iyo caruurtii si biyihii soo galeen markaas qaar ku xaareen si qaar ku kaajeen dabada saddex habeen saddex maalmood hore doona saarantay dhigada maalintiina waa cadceed kulul habeenkiina waa madow aan waxba arkeenin adigu waxaan soo rafaadnaba waxaan soo galnay دولة مالطا waxayna heshay abaara saddexdii habeenimo ay xaqii ku socotaan malta marka qofka markuu liibiya ka soo baxayo ku soo booran garaamsanaya wadanka aad rabtid talyaani marka aad rabtid waad ku soo booran garaaminaysa gobolka aad ka rabtid marka anaga malta America dadka looga qaada marka la yiri maltana loogu soo borograamiyo la isku wada raaci dhalinyartii xaqeed ku socotaan malta okay mayna badbaadina markabkeegi maya baan kuna markabkii waxaana badbaadina mayna siinaa bahalada laga xidho maxaa la dhahayay laga xidho badda qofku markuu ku dhacayo maya baan kuna way wala isku dilaa dhinac bay dadku u diyaacaan dhinac way u diyaacaan doontu way qalintaa marka anaga ka xidhanayna marka inaan kii waday doonta in hareeraha ka galnay saan loo arag shilmadu ku dadnay doontiisan labadii markab noo daba socdeen u soconay ayaan badda malta afkeedan soka imka xaafad xoogaa ay jirtay isla malta dhexdeedan deganahay oo maxaa la dhahaayay la dhaho masiida ayaa ka soo xidhana doontii markay bartay ka soo xidhatay adigu saddexdii habeenimo helan si noo warwareejinayeen 6 subaxnimo ayna soo xidhan bartii markaan ka soo xidhanay waxaa noo yimid boolis waana la soo qaaday saldhigga weyn oo booliska malta qofka yaqaana ayaana la geeyay saldhiggaas maalintii dhan lagu hayay doontii waxaa dib baa loo celinayaa liibiya lagu celinayaa naag wax baratay oo maxaa la dhahaa jarmal ah oo wadankan degan baa ka aragtay niyuuska malta dadkaas la celinayaa naagta mudaharaaday oo tira dadkan masaakiinta oo Soomaalida oo wadankii ka soo qaxayo liibiyana dhibka ku haystay in lagu celiyo xaq maaha gabadhi baad noo dooday sidii badoontiina lagu baajiyay meel bana la geeyay hoola wana loo marmaray waxaana la siiyay tikidhadii liibiyana lagu cilina diyaaradana lagu saar laasa waxaan moodnay sharciyadii ala sharciga waana la siiyay oo markaas ragii dumar shaadis wal bana loo xidhay suuli bana la geeyay shaambooyada hadda guriga aan ku dhaqano ayaa naloo keenay lagu maydho kuwa dhaadheer caagadaha weyn ku jira caagadaha tabaqaada ah anaga maxaan ka garanaynaa shurum waxaan loo keenay hilib shiilan oo dhanaan waxaan loo keenay biyo waxaan loo keenay sharaab caano hilib yaa garanaya qansiir ahaya duuq baan wax kasta ka siinay digaagad baan loo keenay adoo hadalay ku daalnay xabsigii maltaana loo dira xabsigii malta ayaa waxaan ku jiray 2 bilood iyo wax yar qofka xabsiga marka loo diro qofan soo marin male malta xabsigaas aheen interview baa laga qaaday interviewgaaga haddaad ku dhacdid sanad iyo 8 bilood ayaa xabsiga ku jiraysa interviewgaaga haddaad saxdid oo wixii laga doonayo 100% aad keentid waad ka soo baxaysaa sharcigaaga leedahay marka 2 bilood bay ku qaadatay inta interview iyo wax marmariyay iyo qabiilkayga iyo waxaaga isku toosan yihiin sidii xabsiga ka soo baxnay halkii sharciga ka xarastay Sweden baan u safray Sweden markaan u safray waxa la yiri faramalta leedahay dib baan soo noqday odayga waxaan ku raxmo ku sheegay faramalta la ka soo daameesh sidii baa alxamdulillah asaguna igu yimid igu soo badbaaday mar baan jeclahay anagoo labadeeda wada fadhina inaan ka sheekayno waliba imika waan dadajinaya waqtiga ay yar aad iyo aad baan inii salaamaya way xun tahay doonta marka maraakiibta markay dadka badbaadinayso xadhig baa loo tuuraya xadhigaasi Soomaalidu ku wada yaacaysan ba Afrikaanka doonta way qallimaysa waxa loo tuuraya bahalada dhaxanta laga xidho hal mar ay wad ku soo wada yaacayaan oo isqallimaysa maxaa la dhahay qaar baa motorka laga furtaa dhibaato badan ayaa taala saxaraha iyo Liibiya iyo Yurub sida lagu yimaado rafaad badan baa Yurub loo soo maraa lacagtaadina way ka baxda waxaan kala talinayaa inaad soo marin walaalkay hooyaday dhashay iyo in adeerkay laxmiya ayaa igaga maqan oo laba Maxamed la dhaho 16kii bishii shanaad 25keedii doontii degtay maalin khamiisa ayay ku jireen ilaahay oo naxariisto ilaa hadda hooyaday kamay samrin caruurta walaalkay dhalay markaan dhaho caruurta aqoontooda waxa soo dira wax xusi way ka xanaaqdaan mar un soo baxay inanka Liibiya ku xiriyay taaganta marka aad bay u xun tahay saxaraha iyo dhibaatada iyo tahriibta waxa dhaanta adigoo jooga guriga hooyada macaan bariiska la qanaya marna adigu wareejinay marna ay ku wareejinaysa marna faa'iido weeyaan dadkaaga waxba aad u qaban kartaa Yurub haduu Ilaahay ku soo badbaadiyo soo gashin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baan inii salaamaya klibkan waan dadajiyay ka raali noqdo insha Allah wax badan waa soo badin doona klibadan oo kale aad iyo aad baan mahadsantiin wixii aan ka tagay insha Allah markala soo sixi doona wixii aan ma garanaysaay saxayna de waa okay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh